kulanti waxana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona dad badan oo ka tacsiyay geerida ku timi Galaal Galaal u naxariiste iyo waliba meydka Galaalka oo lagu wado in lagu aaso magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ilaalada gaarka ee madaxweynaha maamulka Jubbaland oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Galaal Dhuumaal oo ka tirsan ciidamada saraakiisha ciidamada maamul goboleedka Jubbaland oo si weyn u eedeeyay madaxda dawladda Soomaaliya iyo waliba qaraxyo laga cabsi qabo in ka dhacaan magaalada Muqdisho iyo dignimo laga soo saaray qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan haatana ku soo dhawaada warkii oo dhan aanu ku bilaabanay Allah u naxariistay waxa maanta masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho lagula tukaday Galaal Maxamed Nuur Galaal oo xalay ku geeriyooday weerar kooxda al-shabaab xalay ku soo qaadeen hoteelka Abshir ee magaalada Muqdisho wararka janaasada ayaa lagu tukaday masjidka isbahaysiga islaamka waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xildhibaano wasiiro gudoomiyaasha aqalka baarlamaanka iyo waliba dad badan oo ehelada Galaalka waxa halkaas markii lagu tukaday ka tacsiyay saraakiil badan oo uu ka mid yahay Indha Qarshe oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba saraakiil badan oo ay isla soo shaqeeyeen Galaalka Allah u naxariiste waxaana ugu dambeyn halkaasi markii meedka janaasada lagu tukaday dad badan halkaas ay ka sheekayeen iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish halkaas uu ka sheegay inay ammaanka wax badan ka qaban doonaan waa sida uu sheegay Umar Finish oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho meeshii lagu tukanayay meedka Galaal ayaa xalay waxa hoteelka Abshir ee magaalada Muqdisho markay weerar ku soo qaadeen al-shabaab halkaas uu ku geeriyooday isaga dad badan oo shacab waxaana wararku ay sheegayaan in Galaalka saacadaha soo socda lagu aasi doono magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo la filayo in laga dajiyo Galaal ayaa waxa uu ku suntanaa Galaal ka tirsan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ee ka qayb qaatay dagaalka Itoobiya isagoo ah ninka taariikh badan ka sheekayay wixii ay soo martay dawladii kacaanka ee Soomaaliya uu hogaaminayay Galaal Maxamed Siyaad Barre Galaal ayaa waxa isna uu ahaa Galaal dadka Soomaaliyeed ay ku xasuustaan wax qabad uu soo qabtay dadka Soomaaliyeed intii uu noolaa gudoomiyaha xisbiga ucud ee Somaliland Faysal Ali Xuseen Quraabe ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay geerida ku timi Galaal Maxamed Nuur Galaal oo uu sheegay inuu ahaa nin ku suntan wax qabad waa sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga ucud ee Somaliland waxaana hadalkiisa kamid ahaa waxaan si qaar ah u tacseenayaa geerida ama dilka ku timi Galaal oo ahaa raggii geeshkii Soomaaliya ciidankii Soomaaliya Somali Republic maaha Soomaaliya Somali Republic aga u taagay oo ahaa nin geesi ah dagaalkii 77 waxaa ninkii ilaa Kaaramarle gaadhay buu ahaa waxaa nin taariikhi hayay encyclopedia ahaa waa minarkii qore ku harsanaa ee taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaanba arrimaha Soomaaliya geeska xogogaalka ha marka waxaan leeyahay toosa gaala taladiina ma hayso farmaajo ma hayo taladiina gamciinay ku jirta taladiina gacanta ku qabsada wixii ka dhimana Soomaalida kala idila diyaar baanina laakiin qadiyada ka dhigay qadiyad aleediin oo idugu hormuud ka tihiin ka dhiga markaas waxa uu intaasi ku sii daray in uu dadku ay wax qabsadaan loona baahan yahay in la midoobo dadkuna markaas ay horumar gaari karaan waa sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga ucud ee Somaliland ilaalada gaarka ee madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa galabta ka dagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaas oo la filayo inuu ka dhaco shirka laga hadlay doorashooyinka Soomaaliya ilaalada gaarka oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay ka dageen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyadoo la filayo halkaas inuu gaaro madaxweynaha maamulka Galmudug oo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamul goboleedyada iyadoo hore ay u gaareen madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynayaalka maamul goboleedyada qaarkood
Galaal dhuumaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu eedeymihii ugu cuslaa u jeediyey dowladda Soomaaliya. Galaal dhuumaal oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ugu horreynba sheegay inuu aad uga xun yahay dagaalada gobolka Gado, isagoo oo sheegay inuu aad uga xun yahay saraakiisha halkaasi hogaaminaysa ciidamada dowladda Soomaaliya ee uu sida u sheegay. Waxa uu ugu horreynba ka hadlay Galaal dhuumaal in uu aad uga xun yahay in dowladda Soomaaliya ay sida uu sheegay fargelin ku sameysay gobolka Gado oo ka tirsan Jubbaland. Galaal dhuumaal oo ahaa la taliyaha madaxweynaha gaarka ee dhanka ciidamada ayaa waxa uu ugu horreynba eedeymo culus kala dullaayay waa xildhibaan ciyaar jecel iyo waliba xildhibaano kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, isagoo oo sheegay inay kala qaybin ku wadaan bulshada, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa tusaale inaan u soo qaato mid waxa weeyo waa in ugaas xaashi oo fadhiya xamar oo dhibaatada maanta gobolka Gada ka taagan mas'uuliyadeeda asaga uu leeyahay ee Jubbaland in ugaas xaashiyo waxa aad samayso xamar aad ka samaysay waxa weeye maanta Cabdirashiid iyo Bakaal inay difaac iskugu jiraan, ninka la yiraahdo Xasan Garbaarey iyo MM-na inay difaac iskugu jiraan, in Buule Gireed iyo Maxamuud Sayid inay difaac iskugu jiraan iyo Kaliil. ugaasnimadaadi halkaas ay taala maxaan ku rahaa qabiilkaad ugaas ku ahaydna halkaas u yaala, waxa gaarsiiyeyna adiga weeyo. marka waqti baan ka xisaabtami doonaa, laakiin hadda anigu afkayga ugaas kuma dhahayo, laakiin waxaan ku leeyahay in ugaas xaash. qofka kale oo shakhsiga oo aan raba inaan taabto waxa weeyo Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo senator ka ah galmudug gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxidow ogaadeenka idinla degan adinka oo xuduudda aad leedihiin waxaad kula nooshihiin nabad baad kula nooshihiin, gabdhahaad kala guursataan, maxaan ku idhaahdaa baadidaad isu celisaan, dhacaad isu celisaan. waxa aad u ololeynayso kuwa annaga nala degan oon xuduudda leenahay oon gabdhaha kala guursanno oo daaq annagu isku yahay oon ceelka wada cabno oon tuulooyinka wada degannahay, waxa aad dagaalka Mareexaan ugu abaabulayso waa lagugula xisaabtami doonaa adigana. waxaan rabaa ninka saddexaad oo aan raba inaan soo taabto waxa weeyo Abshir ciyaar jecel weeye. Abshir ciyaar jecelow xildhibaan baad tahay, xasaanad baad leedahay, shalayta waxaad ka niikanaysa beled xaawo, intaad cajalad shidatay ayaad beled xaawo ka niik. Galaal dhuumaal ayaa waxa uu ka mid yahay ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo isagoo horena uga tirsanaa ciidamadii qaranka Soomaaliya dowladii dhexe. waxa uuna eedeymahaasi u jeediyay iyo imaanayaan iyadoo horeyba ay dagaalo culus uga dhaceen gobolka Galaal badxaawe ee gobolkaasi Gada ee xuduudda ku taala Soomaaliya iyo Kenya kala qaybsan. digniin horle ayaa laga soo saaray inay ka dhacaan magaalada Muqdisho qaraxyo ay geystaan Al-Shabaab. digniin horle oo la soo saaraya waxa ay sheegayaan in ay dhici karaan weeraro ay geystaan kooxda Al-Shabaab, halkaasoo la soo sheegaya inay khatar ku yihiin ammaanka. wararka aynu helayna ayaa sheegaya in digniimo ay soo saareen hay'adaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inay dhici karaan in weeraro ay ka dhacaan magaalada Muqdisho, kuwaasoo la filayo in kuwaasoo laga baqdin qabo baa la yidhi inay la balmeetaabsaan xarumaha sida gaarka loo ilaaliyo ay degan yihiin dowladda iyo weliba hay'adaha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. guud ahaan warkii caalamka waad kala socodsiin channelkan ku leenahay Abshir YouTube iyo weliba page-ka wanaagsan.